يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي مقعي عباسي جانك عباسي ما دمانتين صاحبي واني السلامي سلام كدب صاحبي واني اركي سوي سين سوي لك تينس كوانا دورتين وانا قوم هاد علينا سياسة دلادي صاحبي الحقدين او فالين تو صود دجيني او هدا صود دجينا سيد انا صوري قلنا سأقبل على سيزون كيغ لبات سياسة دلادي سأقبل على نكليين وصل يا حبيب كان محمد صلى الله عليه وسلم فالين تينا نو بلاو انتهى بعدك صار وصال نعطي صبر. su-aasheena koowaad oo walaalkeen muxudiin ilaahay khayr ha siiyo wuxuu leeyahay sidoo iskugu bedelaa bini'aadanka Titanic yani bini'aadanka sidoo Titanic iskugu bedelaa Titan soo iskugu bedelaa soo walaal su-aashaas su'aal muhiim waaye bini'aadan isbedelaya waxaan ka aragnaa dad qaara laakiin qisadiisa sida koowaad lagu xusin in aadanaha hortiisa Titan ahaa iyo waxaas lagu xusin halka shay kaliya ogna waxay tahay inuu 100 sano ka hor aadanaha 70% baaba'ashay oo halii soo hartay 80% xataa dheh oo halii soo hartay 20 ka ah oo aadana oo boqorka uu sameeyay saddex darbina oo gudahooda 100 sano ku nasteen oo macnaha wax makhluuqaad oo meeyas uu soo galay Titan aan jirin laakiin Soomaaliya kale ka duwan oo mitirkiisa gaarayo 50 mitir oo darbiga madaxiisa dhaafaba Titan kaas markuu dahooda maca darbiga uu horay inuu darbiga Mario burburiyo waliba magaalada sheegashiin burburiyo maalintaas waxay dhaha saareen waa arkaysan Eren iyo Armin iyo Mikasa dhaha saarayeen dad badan fara badan oo ku baaba'een hooyis Eren meesha ku dhimatay marka inta ogna waatay intaas markaas kadib waxaa dhacay Titano gaar ah oo qariib ah marka Titanaas waxa u maleysaa inuu waaci ay yihiin sida Titanka gaashaanka iyo Titanka weynka Titanka gaashaanka sida uu agtahay ay tahay waa Titan si gaar ah oo damacsan hadaf kale inuu aadanaha burburiyo ma Titanada kale ula shaqeeya ma asiga shaq muqaalkooda markaa fiirsa muu ekatay sida Titanada kale caadiga muu eko waxaana damacsan yihiin inay burburiyaan marka su-aashan intaas waa saaxiib su-aasheen labaad waa walaasheen hodan xasan ilaahay meel walba khayr ha ku siiyay waxay leedahay seasonkeena koowaad waa midkii Eren oo isbedelay laakiin sidoo isku bedelay oo Titan ku noqday waa la yaab waa maasanta su-aashaas su'aal muhiim waayo waa inaad ogaataa inuu Titan soo ku noqday Eren xataa dadkan isweydiinaya sida ogtiin dhibaatada dhacday ee Titan gaashaanka iyo Titanka weynka may burburiyeen magaalada Shiina Eren soo badbaadiyay adeerkiisa Hannes hooyis markay geeriyootay soo baxeen waxay imaadeen qalcada labaad ee darbiga Trost ما أدي قلعة لبعض دربي ترس مكة إمادين إن ماشى صو مركز سكنا أو جيفي وحكوا يرونا يريو ما هبينا كم إذا ريكوا يرونا أبيسو إربط وقعنتك وهايو إربط داس أونو دبعسن أبيس إنه ويف كيس كدرو أبيسو مركز حولها هاي دارة ميكاسي أرمن إنها بتبادي سو وينك وحى كلها أنا كلها يعصم يسو مركز محين فكرتها أبيس إربط داس وكدرها إنه إيرن تيتا كنا هذي بس هو حاس إنه حقيقة هاي وحاس كاب أنا حقيقة هاي وحاس إن دعين كدي واحد إن دعين وحكوا عدينا أيو فريه وإيرن أو وذنين ما ودين قارتيس أو مجرين فراسنا أبيزا وقصينا ودهاي أبيزا فراس ممكن وقصينا ودهاي أبيزا وصيب حي ممكن صيب حي فراس أصعد عندك هاي مركز كدي إيرن وحصوك فرها أو معناها أقدون توجرتها مركز تاسع هو عدين يسوينه إيرن أبيزا مانس أو ماضي لكن إيرن وصيب حسوسناهم وحاسنا عربنا القوة أو قدرة مركز إحنا فكرت إنه أبيز أولد مع سنة وحاس أو تيتن كديجي 5 سنة كديب 5 سنة كديب قاتل ومركز وحاسنا إيه دحين مركز سيداس واجبت هذا أبايو سؤالشيء saddexaad waxay noqon doontaa walaalkeena Maxamed Xasan ilaahay meel baqayr ha ku siiyo wuxuu leeyahay Eren aabiisu gomo furaha siiyay yani Emir aabiisu gomo furaha siiyay hadda su'aasha aan ugu jawaabayna walaasheen hodal ee ugu jirta Eren gomo aabiisu furaha wuxuu siiyay 5 sano ka hor yani Eren markuu Eren Hannes soo badbaadiyo qalcada labaad ay imaadeen Eren wuxuu soo kacay asoo furaha qatiindiis ugu jiro ka goormo loo geliyay inta ugu maatay hal shay kaliya waxa aragnaa oo ah inuu aabiis u dibacsan yahay taas la sadaali karna waa saadarin oo kaliya أبيس هسي فرص خرطو قليل لكن خوفك كلي أو هاي فرص وحو أبيس هاي فرص أصلا نفتر كيس طمحوي هاي تاسنا أقدرنا أن ضد قارس وأشخاص دين ويديان أو جوابين هذين جوابين أنا كرك الشرح إن شاء الله سؤال أفراد ولكن ولست في الله ولكن ما هو فهم له لكن وعليه فرص أبيس حقوقك كيني سؤال كل سؤال لبعض بحث ده بقرك أصلا حقوق مقينها ولكن سؤال هذا وتصل في عوان هرتا 5 sano ka hor waxa markay dhacayeen oo Titanka weynka to imaanin Eren iyo Abiisa garish waxa aragnay in ay ka cunteenayaan oo Eren xanaaqay oo Eren markaas uu dhahay inuu wax banaanka jiro inuu Abiis hortiis ku ogaado oo dhaho Eren markaas marna uu sheegay hooyis Carolina Edis waxaas aabaha horta kuma dhigi kartid markaas la Abiisa u dhahay furaha maxaa difka ka leedahay maxay tahay hadii Titan wax u tahay u naqtay aabahagan waxa maatan uu yiroonos waxaas ajiro إن فران هدف كأتحب فراس إنه وإنا مجال شينا أقول لابنا لكن مجال شيء ما كسوال هستا تيترو فربنا هستان سيدا أوكتين شانس أنا كهر واحد عين واي مركز هدي إنه إيرن هدف كسو كلها أو فراس أو آمين إنه أبيز فران أو فرت أسيء سيفت أن حق كدو انتهي
sidoo kale dad badan aamineen oo weliba xataa kaliyata oo Erwin xataa uu aaminay in furahaas hadaf inay ka yihiin Erin isagu qaata Erwin u gaadhay Titan soo maahan sidaas daraadeed waxaan ku dhacin furaasna meeshaas ka imaadeen waa biisa qolkaas oo laga leeyahay waana hadafka aan ku waadoono in rabno in oo furaas maxay tahay qolkaas hadafka laga leeyahay waana ogaanayna insha Allah sidaasina xigto waxay noqonayaan walaalkiina Jibriil wuxuu leeyahay sidoo qof dadka bini'aadamka Titan u noqonayaan oo kale aadanaha ayagoo aadana ah sidoo kale soo Titanka weynka darbiga u jabinayo oo hal mar u mirqa oo hal mar loo weynaa asagoo weynaantiisa weyn ah oo Titan kale ka weyn ah saaxiibyo loo su'aasha waxay noqonaysaa inta aragnay aadana yar isbedelaya aragnay weliba xataa cadeen ahayn cadeen aan ku hayna inuu Erin iyo aani cadeen ku hayn laakiin Erin wuxuu ugu duwan yahay aani Erin waxa uu ka ogyahay mal Titan inuu yahay waxa uu ka ogyahay qudradooyin kale ma lahan Titan waay bis oo kaliya mana og soo ku naqday laakiin aani qof waaci ah way og tahay qof wax og inuu egta qaabkeeda oo still og tahay sababtoo Erin hadaf ka lahayd Erin inay qabatirta aani sidoo kale ay la mid tahay inuu eg tahay Titanka gaashaanka iyo Titanka weynka oo kale marka waxay noqon kartaa aani inay la shaqeynayso labadaas qof oo Titanka weynka Titanka gaashaanka oo kale Titanka weynka soo hal mar u mirqayo waxa waaye waa saa aragteen Erin markuu isbedelay oo Erin markii Titan dhan cunayeen xalqadaas oo arkeen oo kale ku arkeen oo meekaas ka soo badbaadin Titanka soo baxaya Titanada marka oo jeedin dhamaantood waxa caadi ah markii la dilo in uu u baxayaan marka si fiican u fiirsan aragteen surka markii adiga uu Erin ka soo baxaya surkaas markii meesha kaliya iyaga loo go'aanayo waxa waaye surkaas tii laga diray Titanka ay dhimanayaan marka maxay noqonayaan surkaas ma ayagoo dad badan surkaas ay ku jiraan oo surka samaad bilaadan ku jiro oo meesha laga dilayo mise Erin oo Titan oo noqday oo isbedelay maxay tahay marka dadkaas qaarka oo isbedelay Titan noqonayaan dad qaar waxa jira waaci ah oo wax sidana ay rabaan ay ogaadaan laakiin dadka aadanaha halis ku ah Titan gaashaanka Titanka weyn oo iyo isri aani waa sidaas laakiin wadda waxa ugu maxsanahay oo macnaha guul waxa ku gaarnay in aani gacanta ku dhigan laakiin waxa ku fashilmay aani inay dhalo isku dhaxgelisay isku qarisay aanu dhalaas la jibi karin sidaas darteed meel lagu aaminay meel la dhaxgeliyay soo kana xeeqto leeyahay walaakin Abdullah Xasan wuxuu leeyahay qofka isku bedel Titanka to jirkiisa macnaha jirkaas to aada hadda ka jawaabna Jibriil su'aashaasna weydiiyo su'aal labaad oo Jibriil ku daran ugu weydiiyo ugu jawaabnay laakiin waxa waaye qofkaas inuu jirkiisa markuu Titan isbedelo jirka markuu ka bax jirka uun ahaan u baxayo uun u baxa ahaan Titan walba Titan markii la dilo ismarka jirka meesha ma buu yaalaba uun u baxa laflafahay waxa waa baxayn xataa waa lafiix xataa meesha wada qaacay noqonayaan uun ahaan u baxan Erin markuu Titan kale oo ka baxsan uun noqonaa marka xoogay filmi leer oo macnaha wax isku igdiina uma leesaabeen isku igdiin qaab ahaan ina aragteen marka waxaas uma ogaahayna soo socdo wax ku ogaahayna sararkaas asraata strikriyo oo macnaha waxba aan ka ogin ogaahayna insha Allah hadana faalinteena gaarka galeyna insha Allah saaxiibayaal dhagihiina hamaayo si sobanka ka faaloohayna gaarka Grisha Yeager Erin abiisa markuu 5 sano ka hor asiga oo ka tagay qoyskiisa dhibaato ku dhacday asiga meel uu ku maqan yahay intuu ku maqan yahay lama oga laakiin waxa aragnay riyadaas marka aragnay kadib wax aragnay ka warayna ma lahan 5 sano markuu Erin weynaada xataa meel uu ku maqan yahay cid og ma lahan asiga marka intuu ku maqan yahay asiga waxaas waa ogaadona sidoo kale 5 sano kadib markuu Erin weynaado oo xilada tababarka ay galeen asiga Armin Mikasa waxa dhacay Erin inuu ku dhibtooday oo dhimgeerkan oo barto laakiin Mikasa waxa la yaabay qudardeeda gaarka ah Mikasa si sahal u baratay oo dhimgeerka ayagana waxay arday oo meesha joogeen oo ku dhamaantooda oo tababarnaa dhamaantooda asxaabtiisa oo dhan waa yaabeen Mikasa xirfad gaar ah leedahay sidoo kale Mikasa oo soo jeesanaa sidoo kale Erin oo dhimgeerkan ku baranay oo ku dhibtooda Erin waliba heer uu gaarad oo ku fashilmo oo dhimgeerka waliba xataa taliye loo yaqaan taliyaha tababaraya taliye hore koox saaminta oo ah Kit Sheets oo loo yaqaan saaxiib Kit Sheets kan waa taliye hore koox saaminta asigana dhibaato badan oo soo gaartay saadadii waa lagu wareejiyay oo markuu duqoobay badan Erwin aan qabtay taliye Kit Sheets saddex xigto wuxuu ahaa asigana dhalinyarada tababaraya oo fiican soo sii 5 sano muddo 5 sano gaaray soo asi tababar fiican soo siiyay dhamaantooda markaas ay Erin wuxuu ku saaray inuu tababar fiican oo siiyo Erin oo ku dhibtay dhimgeerka kadibna Erin wuxuu ku guuleystay oo dhimgeerka inuu barto meeshana farxad weyn ka dhacay Erin markaas oo dhimgeerka ku baranay wuxuu dhibaatadaas markuu ka qaaday wuxuu la kulmay dad farxad loo yaqaan Rainer iyo Bertolt loo yaqaan Rainer waa taqaantii wuxuu la socday waa qofka la socday saxaqooyinka qof dadka soo daaween oo Armin iyo wuxuu la socday Jan Rainer marka saaxiib zaid wax isku dhab yihiin Bertolt iyo Asiya marka maalin maalmaha kamid ah Bertolt Wesr iyo Rainer habeen Wesraacin habeenada kamid ahayd way israacin Rainer wuxuu balan u qaaday ayagoo jecel yihiin ay rabaan in wadankooda u laabtaan laakiin dhibaato ay ka dhacdo oo hal saa iyaga qof saaxiibkooda qaali ah oo geeriyooday intay jidka ku soo jireen wadankooda ay joogan oo macnaha meel ay ku sugnaayeen wadankooda waxa waa ay u sheegooyin ay tahay qaacida dabiga tarosta meel kamid ah inay tahay
masa darbiis labaad meel kamid ay tahay qalca cusub gees ku yaal inay tahay ayagoo qalcadaas ku sugnaayeen oo macnaha saaxiibkooda ku waayeen oo marka Titanka soo waayeen ku waayeen marka Rainer wuxuu dhahay markaas inuu bartay oo magacaagu inuu yahay Eren sidoo kale uu yahay Rainer inuu yahay magaciisa sidaas isku barteen beertood markaas meeshaas ku sugnaa wuxuu dhahay aniga dhibaato badan soo gaartay oo waxa naftiina halis ugu soo noqotay saaxiibkeena horteena lagu cunay oo waxa walba ka sameeyay weyn laakiin hadda waxaan rabnaa in kooxda saaxiibinta aan ku biirno aan ka u argulno saaxiibkeena Rainer iyo beertood saasay dhaheen Rainer wuxuu saaxiibkiisa soo qaaday Eren inuu mar walba agtiisa joogo oo mar walba ku caawiyo tababarka Rainer toba fiican wuxuu ka qaatay inuu Eren oo toba fiican ku caawiyo inta 5 sano ay tababarka iskaga joogeen saasayna isku caawiyeen wadooda sidoo kale marka soo jeesano qaybta komidiga oo skip aska dhahan badan soo jeesano xiriir tababarka marka lagu jiro maalmaadkeeda waxyaabo qosol badan zaida gabar lagu maakiishti soo sameynay indhaha qof walba u shiidanayo si uu u dareemo oo qofka cabsida badan oo cabsida ugu bixiyo hore Titanka ka hortagaan mana cabsado inay maahan marka cabsidu ka bixinaya asiga marka indho u shiidanaya marka arag marka ayuu qof walba oo safka lagu jiro waxa la arkay gabar barar isku cunaysa meesha joogto وجيب بدنا عليه حاسني ما يقطع مرمر وبسيدينا يا dhamaantood waa yaabeen waxa ka qaldantan waa loo imaad maxaa ka qaldan ayadana waxay sameysay على مشرفeedka qalbiga sameysay oo aadanaha oo xordho oo la siinay qalbiga maxay dhaday shinsu sageeyo kadib waxay dhaday ayda waxaan ka rabaa ilaa waxaan ka rabaa bardhadan qayb kamid inay iga cuntiin macnaha anina waxa loo baxshay gabadh bardhada saadar ya hada gabadh bardhada loo yaqaana laakiin waa taqaantii waa Sasha waa aragtay wiil hadda ka hor imid badbaadis xalqada daawanaysa badbaadis ayadoo wiilka soo dhiyaro marka gabadhaas xal waxa waa serieskeena muhiim waaye marka characters sisirkee muhiim ah ay kamid tahay sidoo kale waxaan rabnaa inaan ka ogaano qisada Mikasa qisadeeda si gooni ah inaan ogaano haddaan ogaayeen waxa ugu talagalay fiidiyogeena clipka inta u dambeeyna Mikasa aan ku sharxo Mikasa ayda horta inta Eren isla kulmin qoyskeeda hooyadeeda iyo aabaheeda waxay ku noolaayeen meel gaar ah hooyadeeda waa Akarman ka mid tahay familka ama Akarman ka mid tahay aabaheedana waa nin caadi ah maalmaha kamid waxa dhacay inay soo galeen oo dabacsanayeen inay afduubtaan hooyada iyo macalin Mikasa ay afduubtaan hadafka kaliya waa iska cadahay waa dadka Akarmanka familka Akarmanka waxa loo yaqaan meeshan waa gaar famil gaar ah familkaas markan waa bal gadaabo ganacsi aman caadi loo sameeyaa sababtoo familkaas ma aqoon gaar ay leeyihiin dadkooduna waxa waaye dad waxa waa oo tiir weyn ay wax ka leh aadanaha marka muhiim waa waydihiin dad qaliil ah waaye marka hadafka laga leeyahay gabadhaas iyo hooyadeed bis marka la qabto sida u jeedin in markay Mikasa ay aad u awood badan tahay iyo marka loo fiiriyo liiga Taliba aad u awood badan yahay waa fiirsan inuu familka familiar oo yahay sigaar u yahay familka Akarman marka Akarman ay qudradooyinkooda waa muhiim macna awoodooda waa zaid wax walba u fududaa xoogooda waa badan yahay xirfadooyinkooda iyo attentionkooda geesaha loo fiirinayo wax walba sensigooda waa badan yahay marka saas daraadid hadafay ka lahaayeen Akarmanka marka waxay rabaan inaad gataan gabadhan ay gataan laakiinse hooyadiiba dileen dabaaladaas hooyadii intay dileen marka kadib odaygana ay ku dareen ee dileen gabadhan ayadoo naxsan ay soo afduubteen oo waliba xoog soo dileen marka aabihii Grisha wuxuu ahaa qof wax daaweynayo oo maalin alaalkay meeshaas u imaan jiray dadku daaweeya asagu daawo waxa waaye dhakhtar waaye asiga marka Grisha marka oo ka shaqeyn jiray Grisha uu maaday wuxuu arkay meeshan uu wada dhiiga oo dhamaantooda wada baabi'iyaba hooyadii la dilay laakiinse Mikasa meesha ku hayay Eren waxa soo adkaysan waayay Eren madaxii ana xanuunay oo ma arki karo famil oo saan u tabliyar ayagoo tabliyar oo nolol caadi iska noolaayeen oo waxaas ku arki waayeen wuxuushtaas Eren marka waxaas qaba Eren wuxuu qaba waraabo wuxuu qaba oo waxa loo dadka loo geesanana arki karin Eren waana geesanimadiis waxa uu keenaysa Eren sidaas daraadeed Eren iyo abis wuxuu dhahay ani meeshan ka sii fiirina Eren maskaxda ha joogtay waxana fiirina Eren socod Eren asoo naxsan markaas way bixin Eren wuxuu dabgalay nimanka raadkooda dabgalay markuu nimanka raadkooda dabgalay wuxuu arkay irdu u gargaraacay nimankana waxay dabacsanayeen wuxuu dhamaa idda soo garaacay wiil yar asoo weesas of dhahay oo ninka koowaad wuxuu caloosh wuxuu daray midi Eren ninka koowaad saas ku dilay kii kale soo oranto magaca baabka soo laabanay asiga markuu abaabka soo furno oo soo qaata fargeeto weyn oo soo orday Eren kii ka labaadna caloosh saas ugu dilay caloosh ugu muday Eren markaas Mikasa ka furfuray oo wax ku furfuray wuxuu dhahay kan ka baqin aabeyga oo hadii uu qalin imagine ma taqaan wiilkaas ahay dhakhtarka oo loo yaqaan oo Grisha wiilkiisa ahay ka baqin magacayga Eren aan lahaa Mikasa markaas waxay soo xasuustay nimanka guri imaanayeen inay saddex afar ahaayeen Mikasa waxay dhahay afar ahaayeen nimanka na ahayn saddex markaas ka kii afar markuu soo baxo Eren intuu ku dhigo ee jinfta uu qalin rabay Mikasa markaas Eren wuxuu ku dhahay dagaalan hadaa dagaalan mooysan si walba waxa waa dhimanaysa
in dagaalan waa inaad dagaalantaa waa inaad naftaada halista u bareertaa waa inaad dadka jecesha difaaci kartaa meekasa dagaalan meekasana markaas difaacaan jirkeeda ashariira ka kacay oo awoodeen akarman ka kacay marka akarmanka lagu sheegayo waxaas waaye sensiskaasay leeyihiin markay dhiirigelin fiican la siiyo markaas maalintaas ay awood yeelatay ay awoodeed akarmanka soo kacay markaas kadibna Eren ninkaas turk ugu mudabidida ninkaasna ka dishay Eren ka qabatay sidaas daraadeed waxa markaas markay yaryaraayeen oo adiga oo qasas ay dhacday markaasna saas ay qoysku ugu soo biirtay markaas ayadoo markaas murugsan Eren qisadina meesha muhiim waay saaxiibayaal markaas markay meeshaas ma ayadoo murugsan Eren markaas ugu maado meel aad ma garanayso abiis Eren tuu wuxuu dhaanay familkeena kamid tahay familka kamid tahay baqin qoyskeena tahay anuka kula joono garabkaaga ah Eren markaas tuu maado wuxuu dhahay way dhaxmoonaysa ayadoo dhaxmoonaysa wuxuu dhahay maradan oo kugu dhumaa dhuuntaada maradan heeso haddana xoogaa bustahan ku dareemayo sidoo in qabow xoogaa inuu ka degay markaasna xeelo waa dareemayo hadda qabow inaga degay inuu xoogaa gacanta ku qabto xuliya qoyskayga hadda ka bacay kamid tahay soo bax gurigeenan aadina markaasna aad u xulmaatay markaas waxay qalbigeedu aad ugu soo biiray Eren aad macna Eren markaas u jeclaatay ayda laakiinse Eren ma dareensano wuxuu malayaa way walaa sidoo walaashiisa kale u difaacaysa masaa gabar qof oo cunugeeda kale u difaacaysa Eren ma dareensano taas cudurtaas uma hayo laakiinse markaas aad ugu danayso mar walba ay ku celcelisay magaciisa Eren sidaas daraadeed waaye meeshaas ay markaas noo soo biirtay insha Allah xalaqadii faalinta aad xalaqada noo dheereed oo macnaha aad u faahfaahinay oo macnaha sidaas inaa isku sabeeyo oo nin kala yaryarey uma talagelin caadi wax walba inaan nagu sharxo si caadi ah nagu sharxo in xalqo sharxaado faalina soo maahan xalqadeen maanta dhamaanteed saaxiibo mahadsantihiin suugankiina wax badan ka ogaateen dhamaan waa ku mahadsantihiin ina suugankiina si fiican qurux badan u dhamaysanay oo si fiican oo wax xog badan ugu hayno waxaan arki doonaa si suugankiina soo socda inaan soo dhigi doono insha Allah oo hadda mar dhow soo socda insha Allah xalqadeena soo socota waxay noqon doontaa Levi Ackerman Captain Levi ayaa wax walba ka ogaan doona sirtiisa iyo historygiisa hore insha Allah qasideena xalqadeena koowaad taasi ku saabsanaya si suuqeed labaad waana mahadsantihiin dhamaantiina meel dheer aan soo wada gaarnay dhamaantiina ku mahadsantihiin ilaa heerkaan soo gaarnay xana naga loobina subscribe-ka gambareelka si oo channel kor u noqdo oo teamkay u gaaro saaxiibada si 8k waan u baahnaa gelina hambaliyo 8k waa gaarnay laakiinse ina farxad ma muhiim ah xaq farxad ma imanayso ma yaalay 10k ma gaarin 10k saaxiibada or lagu gaarsiiyo maanta 10k gaarno waxa wax xalqooyinkan or fud degaa insha Allah 10k gaarsiiyo insha Allah waa dhownahay saaxiibada u dhiirgeliya dibaxiyaatiin waan taageera waan ku mahadsantihiin channelka kor u qaadaysin magacaygu waa Cabbaas channelka Cabbaas Mbay nabadgeliyo